Ve buradan geçiyorum kısa olarak dış politikaya. xaggee ayaynu kaga jirnaa arrimaha caalamiga dagaalka Bosnia miyuu Turkigu wax ka qabtay ilaa hadda waxaynu aadnay Soomaaliya waxaan ka hadlayaa mulkiilaha wargeyska Hurriyad wararkii been abuurka ahaa ee wargeyska Hurriyad ee 20 sano waxaan sheegay in Mareykanku mustaqbal wanaagsan aan u qorshaynin muslimiinta mar walba waad naga soo horjeedeen annaga siz hep bizim karşımıza dikildiniz maanta 20 sano kadib waxa xaqiiqsaday wargeyska Hurriyad ugu dambayn maanta ciwaankoodu waxa uu sheegayaa Soomaaliya waxa qaramada midoobay ku khiyaameeyeen Mareykanka sidaasi darteed maxaa dhacay Mareykanku 26 ceel oo saliida ayuu Soomaaliya kaga qoday 25 maalmood gudahood miyaad fahmaysaan waxaynu u joogno Soomaaliya miyaad fahmaysaan sababta madaxweyne Demre uu doonayay inuu si xun ugu biro hawlgalka Soomaaliya ma fahmaysaan sababta Turkida shaqaalaha u Mareykanku ay ugu direen ciidamadeena Soomaaliya hadda ayaynu halkani kaga dhawaaqaynaa dawladdu waxay leedahay hal waajibaad ciidankeena ugu maynaan dirin inay Mareykanka ay ka caawiyaan inuu qoto ceelal saliida waxaynu dirnay ciidamadeena oo ducooyinka hooyooyinkeen wata hooyo Faadumo iyo hooyo Caasha wiilasha ayay soo koriyeen way ku seexin jireen hees caruure seexa wiilkow seexo soco wiilkow oo noqo dagaaliyahan ama shahiid tani waa fahankeena maxaa yeelay waxa jira laba shay oo qiimo inoo leh oo aynu nafta u huri karayno maxay yihiin ta koowaad waa diinteen ta labaadna waa dalkeena qiimaha saddexaadna waa qaran muslina iyadoo ay ku nool yihiin dalkaasi macnahaan dadkiisu imika ma jiraan waxyaabahani qiimaha leh eeg halka ay u direen ciidamadeenna ayay direen sidaasi darteed waxay ilaalin doonaan ceelasha uu George Bush ka qotay waddan kale oo muslim ah waxaynu dalbanaynaa in dib dalka loogu soo celiyo 450 askari haddii ay iman waayaan dib ayaynu u soo qaadi doonaa marka doorashada aynu ku guuleysano xaaladda iminku waa mid aan la aqbali karin waxay ahayd in waddanku go'aan uu ka qaato hawlgalka military laakiin miyay weligeed dadkeenna wax ka weydiiyeen waa beenaalayaal weligood lama tashan qaranka anshaxa aasaasiga u ah waa been abuur waxay sameeyeen go'aanadan military laakiin nasiib darro qiyam ma laha madax bannaanidu waa waxa uu reeban qaranka shuruud la'aan ha rumaysanina waa been sababtuna waxa weeye haddii madax bannaanidu ay tahay wax u reeban shuruud la'aan qaranka eeg rayi ururinta qaran ee uu sameeyey telefishanka Interstar muxuu yahay rayigeenna askarta loo daadgureeyay Soomaaliya miyaad aragteen weli haa waanu taageernay natiijo kasta oo ka soo baxday rayi ururinta sidee ayay dadkeennu uga jawaab celin doonaan su'aalahani waxay yidhaahdeen maya imika waxaan halkani dhismaha ciyaaraha ee bursa aan ku suganahay aan ka weydiinayaa qof walba oo halkani jooga miyaad haa ama maya odhanaysaa milatarigeenna jooga Soomaaliya maan maqal haa kaliya haa waa laynagu marin habaabiyey Soomaaliya intii Soomaaliya aynu tagi lahayn waxay ahayd inaynu aadno Bosnia bakın yarın
eeg ha la yaabin haddii maraykanku uu ka soo baxo soomaaliya waa maxay sababtu waxaa dhacaysa in muslimiintu toogtaan muslimiinta kale taasina waa sababta uu maraykanku khiyaamada ugu wanaagsan u ciyaari karo maxaynu u joogi weynay bosniya maxaa yeelay waa muhiim in askarteennu ay u dagaalami lahaayeen walaalaha bosniya waxa uu odhan doonaa haddii aan dhinto shahiid baan ahay haddii aan badbaadana halgamaa taasi waa sababta aan laynuugu oggolaan inaynu aadno bosniya aad ayay xiise u leedahay waxaannu booqannay bariga inoo dhow 25 maalmood ka hor waxa booqasho aannu ugu tagnay madaxweynaha Azerbaijan waxaannu booqannay wasiirada markii aannu booqannay wasiirka gaashaandhigga waxaannu dareennay runtii macnaha ay lahayd booqashadayadu aad bay xiise u leedahay wasiirku waxa uu ka yimi 120 kiiloomitir meel jirta oo khadka difaaca ee Karabakh hadalladiisu waxay ahaayeen haddii dadkana soo booqday aanay ka socdeen xisbiga Rafaax ee Erdogan kamaan soo laabteen aagga dagaalka wasiirka Rahim Gaziyev waxa madaxiisa $100,000 dul dhigay Armeeniyiinta armiiniyiintu waxay wax ku gaadhayaan waxa ay saareen madaxiisa laakiin ilaahay ayaa hoos uga foorariyay oo isna ilaaliyay ma dili kareen waxa uu ku sugnaa goobaha dagaalka lugihiisu waa ay qaboobeen waxa uu iska saaray koofiyadii military